بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا كدولاية marxaladda maantay ummadeennu marayso ayaa waxaan jeclaystay inaan diro fariintii koowaad oo la jaan qaadaysa isbeddelka waddankayga hooyo ee Soomaaliya ka dhacay. ma doonayo fariinta inaan idinku dheereeyo. waxaan rabaa 3 arrimood oo guubaaba ah oo talo ah inaan u soo jeediyo aqalada maanta noo dhisan oo aqalka baarlamaanka iyo aqalka sare, shacabka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 3 kelmadood oo kooban baan rabaa inaan xilka isaga rido oo 3daba aan ku iraahdo. baarlamaanka iyo sanadka waxaan filayaa wax kale igama mudna. shaqadoodii intii saaraydna way guteen, inta dhimana lama gaarin. waxay iga mudan yihiin kaliya inaan ku iraahdo waxaad ka dhabayseen inaad tihiin dad sharaf leh oo qiimo leh, ilaahayna adduun iyo aakhiraba badbaadaanu idinka baryaynaa. waxaa rumoobay aayadda 58 ee suuratul Acraaf alla uu leeyahay walbaladu الطayibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. dhulka wanaagsan wuxuu soo saaraa nabaad ama dhir wanaagsan. waxa xunna wax xun ma wax kale kama soo baxaan. saasay aayadu leedahay. inaad dad wanaagsan tihiin, inaad sharaf leedihiin, inaad qiimo leedihiin waan dareemi karaa. in fara badan oo abaalkiina iyo ammaantiina iyo wanaagiina iyo khayrkiina in lala hilmaamay mirihii idinku aad soo saarteen oo ah doorashadii madaxweynaha. laakiin waxaan leeyahay waxaad mudantiin walaalaha ayaa tihiin, dad qiimo badan baad tihiin, dad sharaf badan baad tihiin. waxaad naga mudan tihiin inaanu idin ducayno, inaanu idin ammaano, inaan idin jeclaano. maxaa yeelay taasi waxay dhiirigelin u noqonaysaa berri tallaabooyinka aad qaadaan, go'aamada aad diidaan, kuwa aad yeeshaan inay ku salaysnaadaan rabitaanka shacabka, sida haddaba doorashada ugu salaysnayd rabitaanka shacabka. walbaladu الطayibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. haddaad aragto meel natiijo xun ay ka soo baxday, dadkaasaa xumaa. haddaad aragto meel natiijo wanaagsan ka soo baxday, dadkaasaa wanaagsanaa. waa arrin u baahan in la sheego oo nicmo ilaahay weeye. allana wuxuu yidhi wa amaa binicmati rabbika faxadith. nicmada alla ku siiye ka sheekee. waanu ka sheekaynaynaa baarlamaankii aqalka sare oo alla na siiyey, wanaagii ay sameeyeen, tallaabadii ay qaateen, wixii aan doonaynay oo ay ku shaqeeyeen waanu ka shaqaynaynaa. waxaan leenahay qabiilkii baad qarannimaad ka doorateen, kooxaysigii soomaalinimaad ka doorateen, danaysigii danta guud baad ka doorateen, khayaanadii ammaanaad ka doorateen, ballanka bixii axdi baad ka doorateen. sidaas ayaan jeclahay inaan ku iraahdo walaalahayo. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa inuu khayr ka siiyo. shacabka maxaan leeyahay? shacabka waxaan leeyahay shacaboo waa arkaa 5 qaaradood inaad faraxsan tihiin. waa arkaa madaxweynaha cusub inaad u ducaynaysaan. waa arkaa ididiilo wadaniyadeed inay idin gashay. laakiin waxaa la idinka rabaa inaad wixii dhacay darsi ku qaadataan. mar dhaweyd bay ahayd
ثورة أما إسبدل شعب ليه هي إن لا أفضوبه إسبدل شعب ليه هي إن لا لدونته كو حفر بدن با waxay u dig iyo dam leeyihiin waxa naga hadlinaya waa wadaniyad nin kasto Soomaaliya midabkiisa qabiilkiisa diintiisa aragtidiisa siyaasadeed annagoo fiirin baanu jecelahay Soomaali walba waxa naga hadlinaya waa wadaniyad waxaan leenahay way hungoobaysaa cid walbo isku dayda isbedelka shacabku keenay in ay afduubto oo ay meel khaldan la aado waxa igu soo dhacaya inta arintaas aan qodobayn qisa aad u qosol badan wala socotaan guusheena waxa sabab u ah baarlamaanka waxa sabab u ah golaha sanadka waxa sabab u ah taageeradii shacabka waxa sabab u ah wanaagii laga arkay madaxweynaha xilalkii hore uu hayay intaasoo isbiirsatay ba isbedelka maanta dhacay sabab u ahayd laba qiso oo cajiib la raba in aad ka sheekeeyo qisada koowaad waxay taariikhda ama turaafku wuxuu qoraya nin la oran jiray Abdullah ibn Ubay waxa la yiri markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam Madiina yimid oo diinta inuu faafiyo bilaabay wuxuu kamid ahaa rajii nabiga mucaarad ku ahaa oo diidan markuu arkay xaaladdu inay si xumaanayso nabigana aad loo raacayo Abdullah ibn Ubay daadkiibu israaciyay baa la yiri muslimnimadii buu soo galay laakiin mansabkiisii odaynimadiisii si uusan u waayin waxa la maalin walba jimcaha intaan khudbada la gelin buu istaagaa wuxuu dhahaa ayuha naas hada rasuulullaahi bayna dhahranikum fasma'u lahu wa atii'u wariyaamay maqlaysaan shacab weynihiyo waa kan rasuulkii Allah hadduu khudbada u istaagi doona hal maqlo hal adeeco waa fariista qadibna nabiga istaaga rool buu raadinayaa rool buu raadinaya mucaaradnimadiisa waa wataa hawshiisa laakiin rool wuxuu raadinayaa inuu samarnaba taarkiisa guban waxa la yiri oo aad u qosol badan dagaalkii Uhud baa waxa la aaday maalin talaada ah wuxuu kamid ahaa ragii dagaalka aaday Uhud oo nabiga raacay oo magaalada banaankeeda u baxay ciidankii nabigu watay sallallahu alayhi wasallam oo Abdullah ibn Ubay ibn Salul uu kamid ahaa waxa la intuu mucaarado abuuray buu 300 oo ciidan soo jabsaday ciidan socda oo military ah oo qayb kamida lagu abuuray maskaxdoodii la bedelay oo la soo jabiyay ciidanka la jabiyay oo 300 nin laga soo goostay dibkaas intuu leeyahay waa aragta hatta ciidankii haray oo nabiga ku haray niyad jab meeshuu ka iman kara waa aragta waxa soo abuuray dagaalkii Uhud waa la socotaa waa lagu jabay dib badan baa dhacay laakiin ciidankii rasuulku way isdaba qabteen maamulkoodina way ururiyeen ayagoo nabad qaba bay subaxdii khamiista waxay dib ugu soo laabteen magaalada Madiina yaa ciidanka raacay Abdullah ibn Ubay ibn Salul yaa ciidanka jabiyay Abdullah ibn Ubay ibn Salul waa sida taariikhdu ay leedahay yaa 300 oo askari soo goostay Abdullah ibn Ubay ibn Salul khamiistii yaa soo laabtay meydkii dhaawiciyo la wada meydkii baa la aasay dhaawicina waa la wataa ciidanka nabiga waa soo laabtay maamulkii ma burburin wax dhibaatana ma dhicin dib baa loo soo laabtay khamiis hadii la soo laabtay jimca maxaa la tukan doonaa jimca salaad baa la tukan doonaa oo Abdullah ibn Ubay intuu xishoodo miyuu oran doonaa nimankii aad shalay jabisay magaalada isaga cararo iska may munaafiq ma xishoodo jimcadii markii salaadii soo dhawaatay buu istaagay yaa ayuha naas hada rasuulullaahi bayna dhahranikum wa atab rasuulki ilaahay dhagaysta oo maqla fasma'u lahu wa atii'u ma xishoonayo ma oranayo ninkii shalay baa tahay arinta arinu egba ii muuqata waxa ii muuqata guusha maanta timid maxay ku timid guusha maanta timid waxay ku timid dhalinyaradii iyo kootadii iyo qoondadii hablaha oo baarlamaanka noogu jirtay oo dhamaantood wadaniyadu qalbigooda ay ka buuxdo codka ay siiyeen madaxweynaha cusub waxa ii muuqata shalay ninkii lahaa gabdhaha in qoondo la siiyo waa khalad oo maanta raba isbedelka inuu meherxado oo uu horboodo waxa ii muuqata ninkii wadaniyadu qalbigiisa ay ka dhimatay oo markuu arkay madaxweynaha oo koofiyad ugu jirto
oo danta dalka iyo dadka ay ku taal shalay radinayay oo lahaa madaxweynuhu waa calmaani fiir wuxuu soo qortay danta dalka iyo dadka waxaa ka maqan diinta ha koofiyadu qabaana tii sunnada ahayd maaha ereyga uu qortayna ereygii diintu qabtay ma kii shalay lahaa ha baa doonaya inuu meherxado isbedelka shacabka ha meeshuu dhuuman lahaa oo oran lahaa haddaa badbaadaan nasiib baad leedahay ha asagii baa boodaya oo ordaya oo raba isbedelka shacabka inuu meherxado ninkii shalay u fiirso koox diineedka iyo fasiil diini aaminsanaa oo marka la war koox diineed waxba ku tarmaysay kaale Soomaalinimada soo raac kaale wadaniyada soo raac kooxahan waa musiibo iska daa ha alhebel waxba ku tarmaysay shacabkaaga la jaan qaad oo wadaniyada kaale soo raac ninka shalay lagu lahaa oo axaadiista beenta u sameynayay oo lahaa nabiga wuxuu sheegay 75 kooxood 73 kooxood 72 kooxood in la noqon doono nabi maxamed waxa la noqon doona ma oga qaybka alla kaliya og kooxana nabi maxamed ma sharciyeyn kooxaa la noqon doonaana ma oran nabi maxamed waxa lagu soo dajiyay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wax lagu qoslo way bayaanka culimada waxaa ku jira qayb ay kaga hadleen qoondada haweenka ee siyaasadda iyagoo ka digay koontada haweenka ee ah 30% iyo in lagu qasbo odayaasha dhaqanka inay soo xulaan waxa ay sheegeen culimadu in ay tahay wax dibadda noogala keenay barnaamijkan culimadu waxay ka digayaan barnaamijka kootada dumarka waayo waa qorshe ay gaaladu wadato hordhacna u ah dhalan rogga bulshada iyo burburinta qoyska 8 kootada dumarku waxay carqalad ku tahay in la helo doorasho xalaal ah waxayna qofka ka xayuubinaysaa xorriyadda codkiisa waana jajuub iyo amar ku taaglayn qaawan 9 waxaan u soo jeedinaynaa madaxda dalka in ay ka run sheegaan ilaalinta diinta iyo dalka ay u dhaarteen oo aysan qayb ka noqon qorshahaas lagula dagaalamayo ummadooda qaala sallallahu alayhi wasallam man ghashana falaysa minna qofkii maaragtay qish iyo amaanadii loo dhiibay ka soo bixi waaya naga mid ma Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay ujeedada ugu waaweyn ee bayaankan ka soo baxay waxana uu sheegay in koontada haweenka aanu ahayn wax quseeya Soomaalida hase ahaatee meelo kale laga soo maanguuriyay waxa uu tilmaamay inuu hordhac u noqon karo burburinta qoyska walaalayaal saa maqlayseen bayaankani waa bayaan culimadu ay soo saareen ujeedadiisu in dad la ceebeeyo ama dad wax laga sheego midna ma ahana waxa weeyaan in ummadda loo naseexeeyo oo waxa ay dantu tahay loo sheego ummadda Soomaaliyeed maanta way kala qaybsan tahay qolo kasta cadkeeda waa goosanaysaa laakiin waxa naga wada dhaxeeya oo ilaalinteedu ay wada saaran tahay waa diinta islaamka weeye waa maaragtay jiritaanka ummadda weeye wax kasto gaar ah haddii qofileeya asaga ilaashanaya haddii qabiileeya asaga ilaashanaya wax kasta oo dad gaar ah ay leeyihiin ma dayacmayo laakiin waxa moodaa wixii caamka ahaa baa naga dayacmaya hadday diin ahaayeen hadday dal ahaayeen wixii caamka ahaa maanta dad la'aan baa haysa ciidan la'aan baa haysa marka waxay ka mid tahay culimadu dadka waxyaalaha caamka u soo jeeda inay ilaaliyaan bayaankan oo ay soo saartay hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa soo baxay iyadoo dawladda cusub kamid ahaanshaha dumarka loo qoondeeyay 30% taasoo ay hadda culimada ay ka digayaan waxaana ugu baaqeen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada in ay ka fiirsadaan go'aankaas oo ay la yimaadaan wax ay ku qanci karto bulshada asagii laftigiisiba raba inuu abuuro cadaawad kooxda la cayriyo Itoobiya dabada laga galo Kenyaatiga la cayriyo cadaawad abuuran bayno waxa dariska nagala dhaxeeya waa maxay waa waxa la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo maamuus waxa la yiraahdaa af Soomaaliga maamuus isweydaar ah afka qalaad waxa lagu yiraahdaa ixtiraam mutabadal dadka qaar baan u qabin af Carabiga af qalaad yahay af qalaad waxa la dhahaa af kasta oo qofka marka lagu la hadlo haduusan baran uusan garanayn af qalaad way qofka Carabiga aan baranin marka la ixtiraam mutabadal ma garan karo af qalaad bay asagu taa ereyga qalaad waa codka xoolaha ordigii baa qalaaday ridii baa qalaaday af qalaad way qofka aan luqadda garanayn qalaad bay u tahay sababtoo qalaadka xoolaha ba macnihiisa ma taqaanid afka qalaad waxa lagu yiraahdaa ixtiraam mutabadal annaga iyo dariska waxa naga dhaxeeya maamuus isweydaara naga dhaxeeya colaad iyo nacayb naga dhaxeeyo
ها wadamada geesaha naga degan bidix iyo midig bay noo yihiin wixii go'aan qaldan waa ka qabanayna laakiin cadaawad cidna nagu abuuri mayso kooxihii shalay cadaawada abuurayay oo saa u dhaqmayay ayaa waxay doonayaan sidii isbedelkii Masar ka dhacay Masar waa ogeeyeen Masar shacabka ayaa gartay in kaligitaliska ay iska ridaan laakiin markiiba kacaankii shacabka ama isbedelkii waxaa meherxaday kooxaysi diiniya aaminsan laakiin muddo kadib alla waa badbaadiyay waxayna jarteen inay wadanka walaal ku yihiin ayna wax wada qabsadaan aysan tarin kaasaa hebel ah kaasaa kooxdayda halkaa u dhiib waxa hadda aan la burburnay wey kaasi waa kooxdayda halkaa u dhiib kaasi waa kooxda halkaa u dhiib waxaasi waxbana tari mayaan kooxaysi iyo qabiilaysi waxba isma dhaamaan wax ay noo taraysana ma leh marka shacabka waxaan leeyahay saasaa laydinka rabaa waana ahaan kuwii shalay qoondada gabadha diidana maxay ku diidanaayeen waxay ku diidanaayeen inay dadka ku harowsadaan islaamkaa diiday islaamku ma diidin inay gabadhu xildhibaan noqoto islaamku ma diidin xildhibaannimadu waa shaqo ummadda loo hayo fiirso aayadda 32 suurat an-nisa ka mid ah alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tatamannaw ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وحي الله إذن سيئ قاركين بقاريان كعورين رجوا وحي شقيستان بيليهن ضمركنا وحي شقيستان بيليهن واسأل الله من فضله أدو هذا شلي أمد إسكا صعدي هذا ودنيا داستي هذا الصومال لماذا كفر كل شيقتي haddii aad adigu shalay istaqoortay oo ummaddu ay ku baarlamaan ku dooran weyday gabadha wadaniyada waa la doortay qabiilkeedii baa doortay shacabkeedii baa doortay ummadeedii baa dooratay inay xilbaan noqoto ha ku cawriin maxaa yeelay alla wuxuu leeyahay was'alullaha min fadlih inna allaha kaana bikulli shayin calima ilaahay fadligiisa weydiista qofna yuusa qar cawri maa sha allah dheh ayadaa shacabku doortay ayadaana u qalantay ayadaana ummadda u shaqaynaysa waxaan leeyahay marka shacabka أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وتا آيات الصحضة إلهي أطيع رسول كيسا أطيع صلى الله عليه وسلم ومرديني ضدك ماملك إذين هينا أطيع وعلى ياي إن أنه لشقينا مدحوينها هي دولة عصب وإلهي وحوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى إسوكا لما يستسمها دور سنانت عبس معها qaar baa waxay nabareen ittaqullaha alla tacabso oo ilaahay horar nooga dhigay maaha dhowrso waa dhowrsasho cabsi maaha annaga iyo alla jacayl baa naga dhaxeeya waan dhowrsanaynaa xuduudiisaan ka dhowrsanaynaa xumaantaan ka dhowrsanaynaa wuxuu necab yahay baan ka dhowrsanaynaa waxa waddankeena duminayaan ka dhowrsanayn waxaanu isu kaalmaysan xoolaha shacabka in la boobaan ka dhowrsanaynaa dhiigooda in la daadiyaan ka dhowrsanaynaa oo fursa وتعاونوا على البر سماها يا دور سنانتا إن غير كين برينان كدور سنينا أننا اسكت تشنينا أننا وحقب سنينا أننا اسجرب استاغينا أننا أبارها كورتغينا أننا شرين تيغا اسكترينا أننا فولونتير وشقينينا وحن قالوا لا يهي وأن مقلعي وحي مظاهرات دعايي ديروبي بانشوغا أنو كيغا وكقيب قاتي قيبتي دي واقاتي شعب كودن لو ولا قيب صدي لكن الله وحو قرآن كيسا كل ياي يا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون محاد قلنا هايسان وحيد الناس سميني مركانوا لهين مدحوينها يغو نولو مركانوا لهين اسبدل كون نولو مركانوا لهين صوماليا نولو مركانوا لهين صوماليا مدو أفبي أهي أدب بانو بانا dhalinyaradu inay soo baxaan baan u baahannahay gabdhihi weyn inaan waddanka la shaqaynaan u baahannahay inaanu volunteer ku shaqayno inta shaqooyinka la abuurayaan u baahannahay inaanu wadooyinka annagu nimaadnaan u baahannahay inaanu tuugga iyo khaa'inka soo sheegnaan u baahannahay kuwa doonaya inay isbeddelka waddanka meherxadaan inaanu gacanta ku qabanaan u baahannahay takoori mayno colaadin mayno laakiin waxaan leenahay maanta maalintiini maaha maalintii kooxaysiga maaha maalintii takfiirka iyo gaalaysiinta maaha maalintii kooxadiimeedka maaha waa maalintii soomaalinimada ama soomaalinimada soo raaca ama xishoodo halkaa istaaga haddayna xishoonayn runtaanu idiin sheegayno arrinta u dambaysoon kusoo gabagabaynayo waxaan la hadlayaa walaalkay marna madaxweynahayga maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay 5 qodob oo intuba diinta islaamka aan ka fahmay baan u sheegay waa mid koowaade guushaadu waxay ku jirtaa tala saarashada alle waana midii aan kaaga baranay si kasta oo u khaldan yihiin
si kasta oo qofka looga gado inuu waddankiisa khayaano inuu inta diido alla tala saarto mansabkiisana uu ku waayo wixii aan kaaga baranay wey waxaan leeyahay ilaahay tala saaro waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh qofkii alla tala saartana alla ayaa ku filan ina allaha baaligu amri qad jacala allahu likulli shayin qadra wax kasta ilaahay baa jaangooye u sameeyey ilaahayna arrinkiisa asagaa xeeshiisa iyo kama dambaystiisa gaara qof ilaahay tala saartayna ma hoogo qof rabbi isku halleeyeyna ma habaabo ilaahay tala saaro labo waxaan leenahay wadaniyadda ku dheg oo yaan lagaa fujin wax kastoo brice lacag kasta ha kuugu fadhido wax kasta kuwa go-aankaaga wadaniyadda ah inaad soomaali tahay inaad soomaali madaxweyne u tahay inaad danta soomaaliya shaqaale noogu tahay xafiiska aan kuu dhiimanay inaad dantayada aad ku hayso danta dadka iyo dalka inaad madaxweyne u tahay arrintaa go-aankeeda marna yaan lagaa fujin فإذا عزمت أبو يري الله فتوكل على الله هداد قوان جارتو الله تلا صارو عد كستا أو ضمعده إنه يودنيه دكاوي عيسو إنه دن دار قوت المانتو إنه عبسكو قريسو والله بان كدارتي ودنيه دا إيا الصومال النمدا إيا شعاركي إيا هالكنجي أقرتي أو أها دنتا دلك إيا دتك أو الله ولا نسكر عسين دلك واسكر عسنا الصوماليا وضلينا جانتا سالينا dadkana waa isku raacsanahay Soomaali baa wadana laakiin aragtiyada iyo diimaha iskuma raacsanin waxa doontaan kala aamini karnaa waan kala duwanaan karnaa dastuurtay ku taala kala duwanaanshaha aragtida qofku inuu qofku xor u yahay aqoontiisa dastuurkeena ku taala laakiin laba wadanna ma kala leeyihiin dalka naga dhaxeeya laba dadna ma nihiin Soomaali baana labada aad muujisay wax kasta hadaad ku weydo waxaad ogaataa inaad bari sidoo kale adigoo kursi dahab lagu dhigay soo laaba doonto markaad wadaniyada ku adkaysato aragga saddexaad wuxuu yahay wax fudayd ah inuusan go'aamadaada ku imaan maxaa yeelay ulul amriga waxaa laga rabaa warbixin kasta oo loo keenay inuu hubsado alla wuxuu quraankiisa ku yiri yaa ayuha alladina aamanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu mid hadduu war idinkeena iska hubiya ma doonayna madaxweyne in colaad dariskana la abuuro in la yiraahdo sahan la yeelo hebel hal colaad hebel ma aha cidna lama nihin colaad waxaan u qabnaa waa go'aanka khaldan inni bari'un mimma ta'malun bu alla quraankiisa ku yiri waxaan bari ka ahay waxaad samaynayso dariskayga waa jecelahay Kenya intaasoo kun oo qaxooti inoo haysa Ethiopia intaasoo kun oo qaxooti inoo haysa laakiin international community-ga boqolaal kun oo dad ah inoo haya America intaas inoo haysa London intaas noo degan ummadaha adduunka walaal baa lanahay ilma aadan baa wadanahay waxa aanu diidanahay madaxweyne waa go'aanka khaldan waa go'aanka liidnimada ah adoo madaxweynaha oo sharaf loo anagu aan ku jecelahay baan doonaynaa go'aan qaadashadu inay ku salaysnaato inay cadaawad ku salaysan tahay ma doonayno cidii halka noo jiidaysa waa cid doonaysa jabkeena weey jabna doonimayno waxaan kaloo leeyahay iskajir kooxaha ummaddu ay nacday kooxaha ummaddu nacday waa kooxaha wadaniyada gaalnimo u yaqaan oo Soomaalinimada kufri u yaqaan oo in aqligu shaqeeyo kufriga waa kooxda doonaysa in ay qaladka ay gashay alla u tiiriso saakadii caafimaadka loo dhiibo wuxuu rabaa intuu ciyaalka alaabtooda gato oo islaamaha uurka la nafaqadooda iibsado markay dhintaan oo qadarta ilaahay baa dishay ilaahay qadartiisu ma dilin adaa ka xaday wixii la siin lahaa mawdku ma aha موت سيدا صلاة ما صلاة وكتابا موقوتا لكن موت وكتابا مؤجلا سبب لي سبب ما يلي إنه ننكو انتو أمده هنتدو دقاتو واحد إباتة دعدا أو هنتدي أسكرت قاتو أو مشاركي عيدا مدى قاتو إنه هدو إلى هذا ما شاء الله قرحي ضدك قد انت قدر الله قد علي ما دوني إنه وحان تصالي ينقص قادي قراه cudurka dabaysha la yiraahdo haduu qadar alla yahay soo mala socotid maanta in laga dabar gooyo adduunka yes talaalkiisa la helay talaalkiisa la helay talaalka qaraxaanu haynaa talaalka colaadan haynaa talaalka burburkaan haynaa dadka in laga gadan weeyo Soomaalinimada inay wadanka walaal ku noqdaan weeye inay yaani waxa weeye ay midoobaan weeye taasa talaal u ah mid u dambaysa waxaan leeyahay madaxweyne oo quwad talanaya dhalinyarada iyo haweenku waa labada guushaada ka dambeysay
ha raacin dhalinyarada wanaaji soo dhawee priority-ga iyo mudnaanta c awlawiyada c mudnaanta c ha raacin kuwa dumarka aragoodii maqalkoodii codkoodii codkoodii cilmigooda cawrada u yaqaan ha raacin dumarka roolkooda c dumarka wax u dhiib dumarka qiimee adduunka meel dumar laga qiimeeyo sharaf laga hela waxaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay ummadda Soomaaliyeed nabad ha siiyo labada aqal oo baarlamaanka waxaan soo jeedin lahaa in la karaameeyo waxaan soo jeedin lahaa ninkii Soomaalinimadiisu ay daacad tahay nin xildhibaan ah ama sanadka ka tirsan ama gabar waxay doontaba ahaatee inaan fadhiga lagu salaamin si kuwa soo socda mustaqbalkooda ay u ogaadaan hadday wanaag sameeyaan in shacabku qiimeyn doono aniga way iga go'an tahay labada aqal qof ka mid ah inaan qiimeeyo oo qof mid kastoo ka mid ah inaan qiimeeyo ixtiraamo inaan madaxweynaha la shaqeeyo inaan shacabka Soomaaliga carabkayga iyo aqoontayda iyo dhaqaalahayga iyo wax alla waxaan haysto ku garab istaago in shacabka Soomaaliya nabadiisii iyo Soomaalinimadiisii ay soo laabato ilaahay baa mahad iska leh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh